السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وناكسن أصحابي ملك استود نقدا ورسان كسور وهذا channel كنا قصوين كان دار اللبا تضبط كان وحن دينا هي قصة كله أو عجيبة أو كسابسن قصوين كلا ياب كله أنو تضبط والبحر كان يدين كوسو قد بينهم. هذا قصة دينا تضبط كان وقصة هنتي عجيب وحين كان لسا قاتلكي دردارن كيس نكي واحد دلي سوء دردار بي وحيابها سيكو سابسطها قصة كنتي قصة وحي كان علي ودنك بريطان مقالة مانشستر لكن وحي كسو بلابان إسا سوريا وقصة هنتي عجيبة هذا قصة وحي كان بلابان إسا ميل كاما وددك فلسطينيين ee Suuriya u soo qaxay ay ku noolaayeen intii aanu bilaaban kacdoonka Suuriya nin dhalinyaro ah ama wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Ahmed ayaa ku noolaa halkaas Ahmed wuxuu ahaa Falastiini laakiin la siiyay dhalashada Suuriya halkaas ay deganaayeen dad badan oo Falastiiniyiin oo ku nool Suuriya markaas dadkaas ka mid ah Ahmed qisadana asaga ayay ku socotaa Ahmed intuu meesha joogay wuxuu ahaa nin la yiraahdo fanaanku ma aha ninka haysa laakiin waxay yiraahdaan carabta fanaan dadka wax sawira dadka waxyaabahan ka shaqeeya ayaa la yiraahdaa marka waxa su'aal u garanayay nin dhalinyaraan uu ahaa gabar Falastiiniyada oo da'deedu ay yartahay 15 jir isaguna markaas 30 jir ayuu ahaa gabadhaas oo 15 jirka ah ayay isbarteen wala sheekaystay waa gabar yar way is ogolaadeen reerkeedii uu ka doontay waa la siiyay waa guursaday aroosa loo sameeyay waxa ku aqal galeen Suuriya ilaahay amarkii ninkan shaqooyin uu iska dalbanayay shaqo ayaa wuxuu ka helay shirkad Ingiriisa Suuriyana ka shaqeynaysa markaas oo macnaha wakiil ku lahayd khaliijka wakiil ku lahayd Manchesterna deganay farsamadiisa iyo xirfadiisaas ayaa lagu qaatay waxaana shaqadiisii la geeyay magaalada Manchester Raniya ayaa la yiraahdaa gabadha ninkan markuu halka tagay shaqadiisu bilaabay guriga la dajiyay meeshuu degay hawshiisu iska watay xaaskiisu u dacwooday waa loo keenay gabadhii markii ay timid iskuul u geeyay luqadii baranaysay sanadkii koobaad cunugay u dhashay sanadkii labaad wiil kale u dhashay laba wiil sanadkii saddexaad wiil kale u dhashay 3 sano markii ay ilmaha dhashay kadib gabadhii isbedel weyn ayaa ku dhacay ninkan habeen iyo maalin uu shaqeynaya reerkiisa walaalihiisa dadkiisa maadaama ninkan bari u shaqeeyahay cashuur badan bixiya dadkii uu keenay uu u dacwooday walaalkiisa eheladiisa wuxuu uu keenay miduu farsamo ku keeno miduu caadi u keeno waxba u keenay dadkii marka reerkii wax badan uu la qabtay ninka marka shaqada ku mashquulsan yahay gabadhina waxay baratay kuwa caraba iyo kuwa kale oo ajnabi ah iskuulkii meelaha isku barteen waxay bilowday meelkaas aadaya ilmaha siihay halkaas aadaya ninkan de waxa dhaqankaas dhaqan u yaqaan ma carabtu waliba way naga adagyiin anaga marka xagga dumarka loo eego gabadha inay gurigeeda joogto gurigeeda ku asturanta diintuna sidaas ay qabtaa halka joogto ilmaheeda korsato waxay u baahan tahay la siiyo wax walba meeshaas gabadhii marka waxa ninka marka way ku shaqeyn waayeen waa la isku dhacayaa waa la murmayaa war aniga xoraan ahay bilowday meesha rabaan tagayaa waa gabadhii Raniya ahayd kaalay adiga marka lugta furan wareeg bilowday
ninkii waa isku wareereen qaati billaahi qoortaa laysu galay 2 sano markii la isku wareersanaa markii dambe dalaaq waa la isdalaaqay macnaha waan kala nafisnaa leeyahay okay wiil noloshayda aan xor u noqdo adiguna noloshaada xor u noqo caruurteedii soo kaxaysatay magaalo kale degtay Manchester ku dhow waxay ku heshiiyeen inay caruurta u keento oo ninkan caruurta markii uu u baahdo uu arko sidiisay u socotay markii cabaar kala maqnaayeen oo furiinkoodu ilaa 3 sano 4 sano meelaha ka soo wareegatay oo mar walba ninkan dhowrkii biloodba mar caruurta uu arkay inta kale uu iska shaqaysanay ayaa maalin maalmaha kamid ah wuxuu yiri caruurta ii keen waxa iigu keentaa uu yiri guriga walaalkay Muhannad iigu keen muhanadku waa dadkii walaalihiisii uu ka keenay halka oo iyaguna Manchester la soo degay mid kamid ah xaasi caruur xataa leey guriga muhanada soo imaano yiri meesha keen okay tir saddexdii wiil soo waday guriga muhanada la keen ilmihii muhanad iyo xaaskii muhanad iyo muhanadkii iyo ilmihii Axmedka kulli waa la israacay wuxuu yiri gabadhana xogaa arinta ilmaha ka sheekaysanayna marka meel baaga meeshaan aad tagaynaa dheen ilmaha la soo ciyaarsiinaya waa xilli marka samar ah oo macnaha qorax ah qabow aan jirin ilmaha way jecel yihiin markaas inay meelaha beeraha ay ku soo ciyaaraan baaga gaashay aaday meesha ku soo ciyaaray labadooda guriga ku soo haray wax dhex maray ilaa hadda qof bini aadan oo ma jiro ninkii telefoona laga war helay wuxuu u wacay labadii wiil oo la dhalatay midkii gurigiisa uu joogay iyo mid kale Xuseen leeyahay muhanadkii Xuseenku wuxuu ku yiri kaalay guriga kaligiina iigu imaado way imaadeen waa naxeen gabadhii oo madaxeedu dhiig ka daayo dhulka saas u taala dhimatay iyo isagoo dul taagan way yaabeen Axmed maxaa samaysay yiraahday maxaa dhacay war ma yaalo dhahay gabadha way wareerisay waa ka takhalusay kowda waxaan rabaa inaad iiqa qabataan waa jarjaraya iyadan Xuseenkii waa argagaxay mid yar oo ahaa la hawla wala quwwata illa billah la hawla ma hana wariya samay gabadhii u jarjaray baaw ku goray ana qaada yiri meel aan ku aasay adinka xataa ma ogaanaysaan ana soo habaysanay wixii oo dhan la tirtiray 3 saacadood caruurtii banaanka lagu hayay gabadhii meesha lagu cunay waa la jarjaray ayadan ninka uu qaatay gabadhii baaw ku gurtay gaarigiisu saaray shandad weyn ku riday shandad weyn ku riday bacma shandadaha qofka markuu dhoofayo kuwa waaweyn boorsada weyn uu ku qaatay gaariga gadaal ka saartay u tigay Rania abtigeed ayaa wuxuu degan yahay Ingiriiska telefoon ay isku hadli jireen marka maadaama gabadha ay garoob ahayd ilma haysatay asagu marka mar walba uu ka warhayn jiray maadaama uu London deganaa asaga iyadana Manchester meel ku dhow ay deganay telefoonkaas kala socon jiray xaaladeeda axwaasheedu kala shaqeysan jiray caruurta ma ku fiican yihiin adii ma fiican tahay asaa ehel dad ugu dhawaa asaga London degay gabadhii meeshii uu ninkii marka telefoonkeedii wacaya abtigeed naka sheegay telefoon ma jiro waxa ma jiro tareenu soo qaatay tareenu soo raacay magaaladii ay deganeedu yimid gurigeedii uu tagay waa xiran yahay telefoonka ma jawaabayso wuxuu shiri ninkii furay oo Manchester degan bal soo fiir ninkii gurigiisu yimid السلام عليكم وعليكم السلام يا أحمد هاي مارتو هاي رانيا والله رانيا وحي يقدم بيسويري قرق ولالكي مهند أي المها قيسي ماشان تقي
caruurtan haayay tiri safaran waxaan ka soo noqonayaa Turkiga macquul ma ahan raaniya wax kasta oo nolosheeda ku saabsan aniga ay sheegtay ahay raaniya Turkiga iskaga aadaysa baaqaan aniga caruurtii guriga walaalkay wali joogaan halkaas ay joogaan marka meesha uga tagtay caruurta xataa ma ogaa ninka hooyaab wuxuu sameeyay aqoon gurigeedii ku soo laabtay gurigii guriga marka waxa laga kireystaa qolo agency marka furayaal kale isbeer haya nimanka agency-yaashu u tagay wuxuu yiri gurigaan gabadha deganay laga yaabay inay guriga ku xiran tahay bal afiirin furiya soo qaatay guriga limid waa la furay uu barbaaray komadiinkeedu furay baasaboorkeedii abiyaal ninkii uu yaa baasaboorka soo qaaday jeebku soo gashaday wuxuu dib ugu soo laabtay Axmed oo dhahay gabadhii maba bixin baasaboorkeedii guriga aan ka soo qaaday hadee waxaan ma aqaan weyn saaxibo maxay rabtaa walaalkay gurigiisa ilmaha keentay weena marayna dhaqaajisay saasayna tiri aniina baxday in kala ma inta warkeedii aan ku sheegay ninkii uu yaab uu soo dhaqaaqay toos wuxuu u yimid saldhigii booliisku yimid wuu sheegay wixii dhacay ninkana inay dagaalsanaayeen isku fiicnayn xumaan ku kala tageen isagana hadda ilmihii haysto iyadii la laayahay wixii dhan uu sheegay booliisku way soo baxeen waxay xireen Axmed maxay rabtaan aniga gabadha saasay tiri marka waa kaas bal inta wax ka baarayno ku jira meesha marka Ingiriiska waxay leeyihiin kaamirooyin tira badan oo meel kasta ku xiran wadanka ugu kaamirooyinka badan Yurub lahaa kaamirooyinka muraaqabada la yiraahdo oo amniga iyo security-ga iyo waxaas dadka lagu fiiriyo booliiskii kaamirooyinkii guriga iridkiisa ku aadanaa muhanadka oo Axmedka la dhashay gabadha way timid la leeyahay ilmaha joogeen ayay baareen waxay arkeen gabadhii oo guriga galaysa markay muddo ku jirtay iyadii soo baxday oo boorso wadata oo haddana baabuurka raacaysa oo baxay way yaabeen baasaboor la'aanse oo baxay meelihii waxaa la fiiriyey maaragtay meel kastaa lala xiriiray wax kastaa la sameeyey waa la waayay ninkii sargaalka marka baaraha ahaa Ingiriiska ahaa baa wuxuu yiri naagtii ninka soo madarsaneen naagta boorso inta qaadatay gaariga ay wadatay iska lahaa ninka iska lahaa ninka la karo ninka la weydiiyay waxa la adiga see gaarigaaga u sis meelan ku soo aada alaabtan meel walkaan isku soo habeena gaariga halkaas aan ku dhigaa wax saasay u tiri xoolo kaamirooyinkii dib loo noqdo kaamirooyinkii waxa loo keenay dad mutakhasisiin ah oo sida kaamirooyinka sawiradooda akhriyaa jira Ingiriiska oo waxaas bartay kaamiradi ragii 4 nin fiirinaysay guriga markay galaysay markay ka baxaysay 3 waxay isku raaceen qofka soo baxay inuu san ayada ahayn laakiin نفس الشيء لركيدي وحيدي قف وطا oo iyada iska dhigay inuu yahay wajigana markii hore wajigeedo furan qofan baqayn amal ay gashay laakiin markan waa la dareemayay qofka ka soo baxay guriga inuu wajiga dadbanay kaamirooyinka waxaan iska ilaalinay oo wajigiisa qariyay وهي بوليس كي نيكي كلابتين أنا دقيسي ده صاحب شكاس مكاي يلين الله كورد جورجا كوبا تالي الشيء جورجا مركز سوقش كمان بحديك ولا حبرك والله يفهمي
meel lagu kala baxayana ma jirto annaga waxa la qofka guriga ka soo baxay gabadhii gashay baahna leeyahay markii hore xogaa waana la boobsiimood laakiin markaan dib u eegnay ma ahna leeyahay wax walba dhirarka waa iska agdhawaay maaha cabirka meel walba laga fiiriyo qofkii ma ahna laakiin nafsu shay qof ayada iska dhigaya ka bax guriga muhanadkii la soo booday iyo xuseen dhab wiilashii la dhashay asaga waa lagu tuuro su'aalaha loo fariist xalay gabadha gurigaaga soo gashay kamana bixin Allah adeer guriga adaa laga rabaa waa khalkhalnik ninkii marka Axmedka wuxuu ogaaday in nimankii la soo xiray walaalihiis asagana ku qasbay kaalaya hawsha ila qabto marka ayaga inuu seefgareeyo rabaa ninka dambiilaha dii waa asaga qaatilkii waay booliisku wuxuu ku yiri anaa marka idin sheegay arutay anaa dilo gabadha qofka guriga ka baxaya waa la marka aniga waa la markeedaan gashaday burukadeedaan gashaday waxeedaan gashaday waa kaas ilaa hadda dharkii iyo burukadii wixii aan ku labistay meesha si ilaaliyo meeshii la tagay waa la soo qaaday waa la arag أنا قش مركي أنا كتخلصين ما حاول تخلص تالي مش جاي ولا أنا شيء جاي مجرم ياب ومحاول الشيء قبل ما مش جاي ولا سر ويولا وياه بوليسكو حيرا دين وياه هي أين الجثة أو ميت بالكي قبل رقدي دي أو مارتي ميت كي حاجة كواست مش جاي ولا ورواي ما يحاول شيء ما يمشي جاي ويل كيجا أو حتى 8 سنة ومية جرا مركو 8 سنة جارو ويل كيجا وين أيان الشيء الدورة مركو حبسي يجوي مادو ماشى أنكو عاصي هو يديس أنت كورش مشي جاي ما لس قصب كرده إنجليز كي وحكو قصب كرمال أنا كان دبي جوا قرتي لبعض مشارك يلا يعني أنا والله قبت 6 حدود محكمة دالجي sidee wax u dhacayna qaadigii wixii loo sharaxay ninkii uu qirtay dambigiisa labadii wiilo asaga la dhalatay waxa lagu xukumay min 4 sano iyo dhowr bilood ayagu jariimada dilka ah kama qayb qaadan ninkan dilka markuu dhameeyay ayay iyagu waxay ka caawiyeen sidoo maartay u qarin lahaa wayna qariyaan marka 4 sano xoolo lagu xukumay qofkii isagana xabsi daa'ina lagu xukumay xabsiga marka lagu tuuray Axmed si kasta inta loo weydiiyo sheegi waay meesha uu ku aasay gabadhi mara dadka qaar waxay ninkan ma cuna gabadha markii hore asaa qaatay waa qaatay ninkan gabadhi meelaan ku aasay adika xataa walaalihiisa ma ogaa kartiin oo irgaaro kuma qaadan xaquu la aaday marka ninkan gabadhi ayagii laftirkooda shaki galay war ninka dadka ma cunaa isdeen wala yaabay sheekadii marka wiilkii ayaa wuxuu gaaray 18 sano gaaray sanadkii hadda dhamaaday 2025 ayuu 18 sano gaaray wiilkiisa weyn booliiskii marka ballantii ninka ka istay wiilkii u soo direen aabaha u tag weydii hooyada meesha ku xabaalay aabiisu u tagay uu tilmaamay wuxuu yiri meeshaas aan ku xabaalay wuu soo kaxay booliiskii wiilku ay soo raaceen meeshii la faagay waa la fiiriyay la fiiyaa laga helay gabadhii waa la baaray in ayada tahay Rania ayaa loo ogaaday booliiska markuu waxay yiraahdeen ku noqo aabaha waxa ku tiraahdaa sababta ii sheeg aabo hooyaday aa u dishay maxaa u dishay gabadhan ma hooyaday maxaa u dishay weydii wuu ku soo laabtay wuxuu yiri aabo waxa rabaa ina ii sheegto sababta hooyaday aa u dishay sabab maxay ka samaysay dambiga ay ka gashay ii sheeg maxaa u dishay wuxuu yiri sir ani ayada naga dhaxaysa waaye ilaa aan ka dhintana ma sheegayo wuu yaabay wiilkii ورأب إيشك ما يمشي
أنا أدلي ماشي أصلا كو أصيل لفيدي سو لما هيلين هل أنا حبس دايس وكم يجرو مركز أنتو أسمع مارتي مركز لا sababta ilaa hadda ninka Axmed uu gabadha u dilay qof og malahalay booliiskii ma oga caruurtii ay gabadhu ka tagtay waa sagu dhalayna hadda dad waaweyn noqdeen kan ugu weyn 18 jirka kale 17 16 hal sano kala weynaayeen ayaguna intaas jiraan wax la yaab leh noqoto marka sheekooyinka la yaab kale ninkan Abu Dalaal uu qoray ayay kamid tahay marka waana runtii waxay ahayd qiso aad cajiib ah hadaba qisadan maxaynu ka ogaanaynaa ama maxaynu ka baranaynaa sida caadada ahayd fakarkiina iyo aragtidiina noo soo qora waa suurtii qiso aad cajiib ah waay oo la yaab leh wasiyatul qaatil al-irada macnaha wasiyadii ninkii qaatilka ahaa wasiyadiisii ama dardaarankiisii waay wixii uu maartay uu yiri ma sheegayo wax kan iyo waxaas marka sheekada la yaab kale ayaynu toddobaadkan channelkeena ku soo qaadanay sida caadada ahayd la gareeyo qisada oo share gareeyo fakarkiina ka dhiibta hadaa channelka ku cusubtaana subscribe ha iloobin YouTube-ka Facebook-na follow gareey inta aan mar kale kulmayno iyo qiso kale asxaabay nabadgelyo